بروفيسور صالح سؤال كويدين وحويان سيدي أفسر لهيد ودن النمو walaalkayow wadaninimadu mid da'deena maanta loo fasirayo maaha waa mid ninka wadaniga ogsoon yahay oo aanu mooganayn waa mid aan ninka aan wadaniga ahayn loo sheegaynin wadaninimadu iyo u dhalashadeeduba waxa weeye qofka ضميركيسا iyo muhdiisa iyo lubbigiisa ay aad uga buuxdo uguna weyn tahay jacaylka dalkiisa wadanigu maaha in la ogaado oo loogu abaalgudo maaha in loo dabaaldego oo loo mashxarado maaha inuu had iyo goraale ku soo beegmo mar dadkiisa iyo dalkiisu ay libin taagan yihiin ee maray colaadeed tahay oo saban adag ay tahay oo u dagaalamayo dalkiisa iyo mar dalkiisu barwaaqo yahay oo uu sii dhidbayo barwaaqada iyo madax bannaanida dalkiisa wadanigu gu'iyo jiilaalba waa midaan midab doorsoomin oo dhaqan doorsoomin oo aan food habaabin oo aanay ka amban jacaylka uu dalkiisa u haya kuma noqon kartid wadani in calanka Soomaaliyeed amba calanka wadankaaga ku doonaba ha ahaadee lagugu laalaabo lagugu aaso oo lagu mashxarado oo lagu ammaano calanka oo aan ciidgal ahayn oo ciidda lagala dagaalamo inuu ku dhaco iyo mariha qofka meydka lagu laalaabaa way ka hadhayaan qofka meydka dadka qofka sii dhaweeya way ka soo noqonayaan xoolaha uu qofkaasi lahaa way ka soo noqonayaan laakiin waxa qofka raacaya oo tan iyo jaaha ilaahay marka uu hortagayo la soconaya waxa weeye cibaadadii uu iska geystay markuu uu noolaa iyo muctaqadaadkii ikhlaaqeed uu lahaa iyo camalkii uu geystay intuu iska ku noolaa oo ikhtiyaarka madaxa bannaan lahaa haddii wadaninimadu u dagaalankeeda ku maansashadeeda ku hamigeeda u halgankeeda u ducaynteeda qolay ku tahay ay kugu dheerayd camalku raacaya oo ciidda iyo ilaahayba ay ku og yihiin bay ahaanaysa iyadoo oo kooban wuxuu yidhi ninkii jiray haddii inaan weligay waaro lai qori lahaa ayaan waaritaanka dib uga soo noqon lahaa intaasaan caawa su-aasha ka